يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونصلي ونسلم على رسولنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد أخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal waxaan ku guda jirnay ayay ahayd ilaahay subxaanahu wa tacaala tilmaamaha gaarka iyo fadliga gaarka iyo sharafta gaarka ee ilaahay subxaanahu wa tacaala bishaasi uu siiyey ee ilaahay gaar uu kaga yeelay ee bilaha kale ay kaga duwan tahay. waxaa ka mid a ilaahay waxyaalaha ku gaar yeelay ku manaystay bisha ramadaan ayaa waxa weeyaan soomkeegu ayaa sababun min asbaabi ijaabati dacwa, inuu ka mid yahay sababaha lagu aqbalo ducada oo qofka waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ducada uu ka aqbalo. dhammaantiin walaalayaal waxa weeyaan waxaan u baahannahay oon aada u jecelnahay oon aada u rajaynayna oon aada u raadinaa inuu ilaahay ducadeenna uu aqbalo. halkan waxaa laynoo tilmaamayaa bisha ramadaan in ay tahay bishii ducada la aqbalayey. sababtu waa maxay walaalayaal? lianna ramadaana zamanun faadil, waayo ramadaanka laftiisa ayaa zaman aada u fadli badana. wasiyaamu camalun faadil, soonkuna waa camal sharaf iyo fadli fara badan leh. wasaa'imun caamilun faadil, ninka soomana waa nin shaqaalaha oo shaqaynaya oo camal samaynayo isaguna fadli badan. faijtamacad asbaabu ijaabati dacwa, sidaa darteed bay asbaabtii ducada lagu aqbalayay oo waqtigii oo maaragtay fadli badan, soonka laftiisii oo fadli badan, qofkii soomanaa oo fadli gaara leh. saddexdaasaa isku tegey, saddexdaana waa saddexdii ducada lagu aqbalayey. qaala sala allahu calayhi wasalam, nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi halaatha dacwaatin mustajaaba, saddex duco waa la aqbalaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam. dacwat asaa'im wa dacwat almadluum wa dacwat almusaafir. wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam dacwat asaa'im, qofka sooman ducada waa laga aqbalaa buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam. qofka waxa weeyaan laga gardaran yahayna hadduu gacmaha kor u qaado ilaahay ducada wuu ka aqbalaa. qofka musaafirka ana ee safar ku jirana ilaahay ducada wuu ka aqbalaa. sidaa darteed walaalayaal, 30 maalmood ee waxa weeyaan berriba dhammaan doona ayaa laynoo tilmaamayaa in ducada aad ilaahay barido, waxaad ilaahay weydiisato ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu aqbalayo. miyayna habboonayn oo qof kasta oo muslima, qof kastaoo caaqila, qof kastaoo garaad leh, qof kastoo wanaag iyo khayr doonaya inuu 30 maalmood walaalayaal waa fursa haaliya oo laa tacuud weeye, inuu ilaahay baryo wax alle wuxuu u baahan yahay ee adduunye aakhiraba khayr leh inuu ilaahay weydiisto. uu 30 maalmood mar kastoo salaada uu tukado, mar kastoo la aadaamo, mar kastoo masaajidka u galo, marka afturka lasoo dhigo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala baryo wax alle wuxuu u baahan yahay. ilaahayna waa ka aqbalayaa fi dunya markaas walaakhira weeye. nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa kaluu yihi halaathu dacawaatin laa turaddu buu rasuulku yihi, saddex baryo, saddex duco, saddex alla bari lama celiyo buu nebigu calayhi salaatu wasalaam. maxaa ka mid ahaa? dacwatu lwaalidi liwaladihi, inuu waalidku ilmihiisa hadduu u duceeyo waxa weeye ducada waa la aqbalaya. wa dacwatu saa'im, qofka sooman ducadiisana lama celiyo buu nebigu calayhi salaatu wasalaam. wa dacwat almusaafir, qofku waxa weeyaan markuu safar galana lama celiyo ducadaasi. inkastoo inaku inta badan markaan safar iyo meel tegano maba xasuusninba, waan iska ilowsannahayba, waayo waxaa la doonayaa camal kasta marka la bilaabayo wixii loo baahnaa oo cilmigii loo baahnaa in markaas wax weyn la barto. safar markaad gelayso inaad sii akhrida wixii loo baahnaa, kadibna inay ka mid tahay safarku inta aad ku jirteed soo noqonayso inay ducadaadu maqbuul tahay. maasha allah, inaad markaa ka faa'iidaysato. sida oo kale waalidka ducadiisana
in layska ilaaliyo inuu waalidka maaragtay waxa weeyaan au ku habaaro inuu waxaad ku dadaashaa inuu waalidku kuu duceeyo. ducadaasi kol hadduu waalidku kuu duceeyo ma soo jeesanaysid. soomaalidu waxay yidhahdeen qofka wanaagsan ee wax walba ilaahay u fududeeyo, ee wax walba ilaahay u dhibireeyo, ee wax walba ilaahay u soo dhoweeyo, ee ilaahay barwaaqeeyo, ee ilaahay nicmeeyo, ee ummaddu ay jeceshahay, ayaa soomaalida waxay yidhahdaan waalidkiisa u duceeyey. waa run weeye. haddaad waalidkaa ka ducaysato waxba ku soo celimayaan, wallaahi wax walba ilaahay uu kuu fududaydinaya. waa arrin hore loo tijaabiyey weeye. sidaa darteed ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay inuu qofku markuu afturayo in ay jirto ducaau maqbuula cinda fidrihi buu nebigu calayhi salaatu wasalaam. qofka markuu afturka loo soo dhigu bilaabo halkaana waxaa jirta buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ducada in la aqbalo waqtigaasi. waa marka afturka saa loo soo dhigo weeyaan. saa darteed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu odhan jiray, wuu ducaysan jiray rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi, dahaba adama'u wabtallat alcuruuq wa habata alajru in shaa allah. nebigu calayhi salaatu wasalaam marka saa loogu soo dhigo hor fadhiisto afturka ayuu odhan jiray, dahaba adama'u, haraadkii baa tegey, wabtallat alcuruuqu, xididadii oo dhanna way qoyeen, wa habata alajru in shaa allah, ajrigiina waan helay oo ilaahay subxaana wa tacaala waa naga aqbalay. sidaa darteed baa loo ducadaa nebigana in la xifdiyo oo lagu ducaysto. wax alla waxaad u baahantahay inta yareed dul fadhideed sugayso inaad ilaahay weydiisato weeye. waxaa kaloo markaas walaalayaal ka mid ah fadli waxyaalaha ilaahay gaarka uu ku yeelay, tilmaamaha ay leedahay ee ilaahay ku manaystay bisha ramadaan een waqti kale la helayn, anna siyaama yashfacu lisaaxibihi yowma alqiyaama. maalinta yowma alqiyaamaha marka laysku yimaado walaalayaal ee ilaahay hortiisa la taagan yahay, ee cadceedda la soo dhoweeyo, ee nin walba dhididkiisi dib ugu soo noqdo, ee ilaahay uu lahaa yowma yafiru lmar'u min akhiihi wa ummihi wa aabiihi wa saaxibatihi wa baniihi wa fasiilatihi alatii tu'wiihi waman fi lardi jamiica. au ilaahay lahaa qof walba qofka kalu ka caymadaya, ilmihiiba aabbihii ka caymadaya, odaygiibaa islaantiisii ka caymadaya, dadkiibaa la wada kala baxsanaya. waayo wuxuu leey bilee maalin wax iimuu samayn, bilee maalin buu wax iga qaaday, maanta ma jiro xoole laysa siinayaa, waa qofka xasanaadkiisiiba laga qaadaya. maalinta sidaasa ayaa walaalayaal soonkiibaa imanaya. maasha allah, soonkiibaa imanaya. markaasuu odhanayaa, halkan soo joogsanaya, wuxuu odhanayaa, yaa rabbi yaa rabbi manactuhu dacaama washaraaba fi nnahaari washahawaat. ilaahayo waxaan u diiday, addoonkan ilaahayo waxaan u diiday. waa qofkii soomi jiray ee sidii ilaahay subxaana wa tacaala u yihi, sidii nebigu calayhi salaatu wasalaam yihi u soomi jiray, ayaa wuxuu odhanayaa manactu dacaama, waxaan u diiday cuntadii iyo sharaabkii iyo shahawaadkii iyo waxay naftiisu jeclayd oo dhan ayaan maalintii waxa weeyaan u diiday. fashafichu ayuu odhanayaa markaa, ilaahayow markaa ergadaa iga aqbal. fa yushfacu fiihi, waa laga aqbalaya markaas walaalayaal. waa cajiib weeye. markaasaa ninkaa waxa u shafaacad qaadaya soonkiio ilaahay dhibaatada intaa leeg buu ka badbaadinaya. yaquulu calayhi salaatu wasalaam, alsoomu waalqur'aanu yashfacaani lilcabdi. wuxuu leey nebigu calayhi salaatu wasalaam, soonka iyo qur'aanku labaduba waxa weeyaan addoonka maalintaa la baahan yahay ayay u ergeyaan markaas walaalayaal. yaquumu soom, soomkii ayaa wuxuu odhanayaa, ay rabbi manactuhu dacaama washahawaata binnahaar. ilaahayow cuntadii iyo shahawaadkii iyo wixii au jeclaa oo dhan baan u diiday. fashaficnii bihi, ilaahayow ergadaa iga aqbalo u ergee oo ilaahu dhibaatada ka badbaadi. markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala ayaa laga badbaadinayaayo jannadu halkaa markaas walaala ka gelaya. wa yaquulu lqur'aan, haddana qur-aankiibaa imanaya. waa kee markaas walaalayaal? qofkii qur-aanka akhriyi jiray ee maalintii akhriyayey, ee habeenkii akhriyayey, ee ilaahay kitaabkiisa la noolaa, ee bil walba mar iyo laba dhammaynayey ayaa qur-aankiibaa odhanaya. muxuu odhanayaa walaalayaal? manactuhu nawma bileyli, ilaahayow addoonkan waxaan u diiday inuu seexdo, habeen oo dhan buu i akhriyi jiray. sidaa darteed fashaficnii fiihi fayushfacaan, ilaahayow maaragtay u ergeeyo dhibaatadaa ka badbaadiyo, ilaahay baa ka badbaadinaya. xaqiiqatan walaalayaal taas waa mid aan isweydiino oo inagu iska daa habeen aan hurdo uga soo jeedne, maalintii baan xitaa qofka qur-aanka ayuu maaragtay waxa weyan akhriyeyn. casri waxaan joognaa, waqti waxaan joognaa laga hijrooday qur-aankii oo ilaahay kitaabkiisii la fureen. culimmadu waxay tilmaameen qofka ilaahay kitaabkiisa aan akhriyin 24 saac inuu qofkaasi iimaankiisu daciif yahay. barhkood waxay yidhahdeen min alghaafiliin. walaalayaal cizigeenna iyo sharafteenna iyo wanaageennu fi diin walaakhira
ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisuu ku jiraa oon gacanta midig ku qaadano. waxaa kaloo markaas walaalayaal ka mid a fadaa'isha ay leedahay ee bisha ramadaan laga helayo ee gaarka ay ku tahay ee inaan ka faa'idaysana loo baahan yahay ayaa mudahira lidunuub. waxa lagu dhaafaa bisha dembiyada oo dhan buu ilaahay subxaana wa tacaala ayuu waxa weeyaan ku dhaafayaa. nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau ihi ina allaha kataba calaykum asiyaam, ilaahay wuxuu idigu waajibiyey bisha ramadaan buu ilahay idigu waajibiyey. wasanana lakum qiyaamahu, inaad habeenkii sare joogtaan ood habeen oo dhan cibaado ku soo jeedaanna waa lidii jideeyey. faman saama waqaama, qofka sooma ee habeenkiina cibaado u taagnaada ixtisaaban isagoo ilaahay keli ajir ka doonaya, kharaja min dunuubihi, wuxuu ka soo baxaa buuri bishu markay dhammaato dembigiisii oo dhan ka yoomi waladadhu ummuhu, nebigu calayhi salaatu wasalaam sidii ay maanta hooyadii dhashay wax alle wuxuu dembi lahaa oo dhan ayuu ilaahay subxaana wa tacaala. wallahi haadihi fursa haaliya oo ilaahay wax alle wixii dunuub aan samaynay oo dhan ilaahay subxaana wa tacaala waxa weeyaan inagaga dhaafaya markaas walaalayaal. sidaa darteed nin walba wuxuu jecel yahay ilahay wax alle wuxuu qofku bini-aadamku dembi sameeyey oo dhan inuu ilaahay ka dhaafo. waxa lagu dhaafayaa waa maxay? waa bishaa markaa ramadaan walaalayaal. waxaa kaloo ka mid a annahu wiqaayatun min annaar weeye. waxa weeyaan waa waxyaalaha qofka soonku ka badbaadiya naarta ee naarta waxa weeyaan lagaga badbaado weeyaan. sababta waxa weeyaan shahru ramadaan ayaa waxaa la xidhayaaba muqlaqun abwaaba annaar, albaabada naarta oo dhan baa la xidhaa. waxaa kaloo la xidhaa ashayaadiin, ayaa shayaadiintii dadka xumaanta ugu yeedhiyana silsilado ayaa lagu xidhaa. yaquulu calayhi salaatu wasalaam, nebigu wuxuu ihi assawmu junnatun weeye, soonku walaalayaal waa gaashaan weeye, waa ilaalo weeye. wuxuu kaa ilaalinayaa, uu kaa badbaadinayaa, uu kaa nabadgelinayaa, waxa weeyaan waa naartii weeye, uu kaa badbaadinayaa, gaashaan buu kaaga noqonayaa. wuxuu ka rasuulku lahaa sala allahu calayhi wasalam, soonku waa xisni, waxa weeyaan xasiinun min annaar wey, waa dhufays adag oo waxa weeyaan naarta kaaga noqonaya oo ilaahay subxaana wa tacaala waxa weeyaan au kaaga badbaadinaya markaas walaalayaal. sidaa darteed ayaa waxaa loo baahan yahay inaan bishaasi aan ku dadaalno oon guntiga dhiisha iskaga dhigno sidii nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaaman macduudaad buu ilaahay ku tilmaamay. waa maalmo yaroo waxa weeyaan tiraa oo berri tolo bay dhammaan doonaan, sanadka dambe inay ku soo mari doonaan walaalayaal garan mayno. waayo waxaan ku khatimanaa markaas walaalayaal soonkaasi fadliga iyo wanaagga uu leeyahay inay wax lamidii jirin. waxaa jiray waqtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa laba nin baa saaxiib ahaa. labadaa nin mid baa dadaal badnaa, dabeedna waxa weeyaan ninkii dadaalka badnaa ayaa maalin maalmaha ka mida jihaadka ayuu tago oo dagaalkuu galay, jihaadkiibuu ku dhintay. macnaha ninkii wuu shahiiday oo halkaa dagaalkii qofka dee waan garanaa jihaad ku dhintana inuu ninkaasi shahiid yahay oo halka lagu dilo uun waxa weeyaan aw jannada ka gelayo. uu nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi aljannatu taxta dilaali siyuuf, jannadu waaba seefaha harhka hoostooda oo halkaa seefta hoosteeda halkaa qof kolka kurka laga gooyo halkaasuu jannada ka gelaya. ninkii kale saaxiibkii ayaa isna wuxuu dhintaa la yidhi sanad dabadeed buu dhintay. isagu jihaad kuma dhiman, isagoo xaafadiisii jooga ayuu dhintay. kadib markii dambe saxaabigii dalxa ood garanaysaan ayaa wuxuu ku riyooday labadii nin ee saaxiibka ahaa ee midi jihaadka ku dhintay, midna sanad ka dambeeye xaafadiisa uu ku dhintay. waxa la tusay markay jannada gelayeen kii jihaadka ku dhintay maahay, kii kale ee xaafadiisa ku dhintay ayaa jannadii ka horgalay. markaasuu uga sheekeeyey abudalxa, riyadii u arkay buu uga sheekeeyey. saxaabadu waxay walaalayaal aada ula yaabeen, sidee buu waxa lay ninkii jihaadka ku dhintay, nin gogashiisa ku dhintay uga horgalay jannada. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi miyaad la yaabantihiin buu ihi inuu ninkani ninka ka horeeyo. waayo wuu nebigu calayhi salaatu wasalaam miyuuna ninkani sanad ka dambeeynin, dabadeedna miyuuna soomin buu nebigu calayhi salaatu wasalaam. markaasaa la yidhi mee rasuulka ilaah sanad buu ka dambeeyey, wuu soomay. wuxuu yihi kol hadduu sanad ka dambeeyuu soomay, soonkaasuu kaga badiyuu nebigu calayhi salaatu wasalaam. halkaa waxaan ka fiirnaa walaalayaal, mar kastoo rabadaan kuu soo gasho inaad qofkii hore ee tegay aad ka khayr badanayso oo soonkaasi aad kaga fadli badanayso oo jannadiina uga horeynayso. sidaa darteed bay markaa walaalayaal soonku fadliga intaa leeg au leeyahay. ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryanaa inuu ilaahay ramadaantaa ku aqbal ilaahay naga dhigo, kuwa ilaahay leylatulqadriga la kulma ilaahay naga dhigo, kuwa dunuubtooda la dhaafo ilaahay naga dhigo. ilaahay subxaana wa tacaala caafimaad qabna ilaahay noogu dhammaystiro,
sanadkaas sanadkiisana in sha allah inakoo caafimaad qabna inuu ilaahay nagu gaarhsiiyo bisixati wasalaam walcafi walcaafiya inuu ilaahay subxaana watacaala inagu gaarhsiiyo sanadkaas sanadkiisa ayaa ilaahay ka baryanaa وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلب سما نحو السماء مترنما